halkan aan ku suganahay waa isgooska X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho waa halka laga raro gawaarida aada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana laga qaadaa shacab aad u fara badan kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan ku qaba sidii loo xiray wadada isku xirta Muqdisho Afgooye oo ay dhismo balaaran ku socoto wadadan oo u dhaxaysa Muqdisho Afgooye ayaa la xiray 20ka January ee sanadkan waxaana loo xiray sabab la xiriira amni daro ka jirta wadadaasi iyo sidoo kale qaraxyo la eeganay injineerada Turkiga ay dhisayay wadada isku xirta Muqdisho Afgooye taasina waxay keentay in gabi ahaanba la mamnuuco isticmaalka wadada isku xirta Muqdisho Afgooye iminka waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah darawalada ka haysa gawaarida ee ka shaqeysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose si ay nooga warbixiyaan halka ay hadda maraan iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan iyo sidoo kale lacagta laga qaado shacabka aadaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose magacayga waxaa la yiraahdaa Abuukar Umar Sheene waxaan ka mid ah darawaliinta ka shaqeysa manaha X Control Afgooye oo manaha maanta la kulmaysa bacaadka wareegsiga qiimihiisana manaha markii hore oo ahaa 15,000 shilin haddana manaha saayid manaha nagu noqotay manaha bacaadka daraadiis aan la wareegayno هذا waxaan rabnaa $1 iyo bar meesha 15,000 shilin markii hore oo ka ahaa marka hadda macnaha dawladda waxaan ka codsanaynaa inay macnaha laamigaas macnaha ay naga holfududeyso si aan macnaha uga baxsano dhibaatada maanta aan kala kulmayno wadooyinka hadda wadada hadda macnaha ka soo wareegno waxay tahay daynile iyo baabuurta macnaha qaarna macnaha waa foral drive macnaha bacaadida maraan maxaa ku raay maanta macnaha waxaan baabuurta saanaga darawaliinta saalo dhigan ka midna waxaan ربنا لنا أنا معناها نلف ضيق لا مجالس سيدا تقول أخسيها وإبراهيم عصواي علي قاري علش مع الوراعي وعشان الكهول الوراعي أول مع الوراعي سيدك وضوء على الوراعي حاس بدل كيم هذا وضد العناء كالوريق واي بعد المرة ديلي للمرة علش الوراعي الشعب كل العقل مديبه شغل العقل اسكره جورنات العقل اسكره تشبيه العقل اسكره ضرب العقل اسكره كم سنة ماشي مسكين يسد وشان يتبقون إلى بعض كل مسكين هاي كم تهاي هذول يعني أول سيدك يتبقون على استقاضي كم تهاي إن هذا الشعب كوا وراه كم تهاي هذا أول الشعب يتبقون سيدكم على قاضي شان يتبقون حتى يعني على استقاضي مركزة مجرى ممكن إسباروين بدل ما عليه كذا إسبارو بدل أنا على شو واحد من استقاضي لكن أكيد استقاضي أفضل شو على استقاضي كم قرنا شغلان بلاو شغلان أنا محاط بلاوي أبي لبنتي إلا ما تقول بلاو واجب مركز لا إنتاج عشان كجار هي أنت اللي جاي أفر سنة 20 سنة يوم تيجي من أنا جعله في غيره أجعل حال دولتنا كذا البنات الشعب كبو باغو مدرك والله والشعب كان هذا باغو مدرك من مسؤول وحي مسؤول أو وحي من وجرا من معان باغو وجرا من أنا وحي عن بريس كان جعلهم كهر الحمد لله هو aniga oo ah Maxamuud Cabdi ku magac dheer garweyne waxaan gaadiidka ka shaqeeyo walaweyn iyo ceelasha iyo X Control Afgooye dib ayaan ku qabnaa jidkii oo la xiray wax dhismaa ay ka socon waxaan rabnaa in dawladdu wax nooga qabato wadada gaadiidku dhib uu qabaa taayel ma haysano bacaad ayaan marnaa tiro badan marka saanino sidoo kale ay socotaan ilaa meesha rabto Afgooye iyo inta 3 saac ayaan u soconaa 3 saac أولنا صدّن دقيقة نسوي أجرنا. أنت إسباروين أنا كأنا مرنو أدير يا مثلاً لا س لبكاس شتكو كتيران. sida aad ka deehan kartiin wareysiga aan la yeelanay darawalada ka shaqeysa Muqdisho Afgooye wadada u dhaxaysa waxa ay inta badan sheegayeen in ay dhibaatooyin iminka ay ku qabaan iyagoona dawladda ka codsaday in dhismaha wadadaasi la fududeeyo isla markaana loo furo 18 January ee sanadkan ay ahayd markii qarax ismiidaam la eegtay injineero Turki ah kuwaasi oo marayay isgooska Baar Ismaaciil ee degmada Afgooye 21 January ra'iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu la kulmay maamulaha shirkadda Enes oo ah shirkadda wadada dhismaha wadada Muqdisho Afgooye isku xirta waxa uu kala hadlay in ay sii wadaan dhismaha wadadaasi si loo soo gabagabeeyo isla markaana ay sugi doonaan Khayre ayaa u balan qaaday in ay sugi doonaan amniga shaqaalahaasi iyo sidoo kale in ay sugi doonaan ammaankooda intaba Waliid Xaaji Cabdi